Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana salaama khiyaarta ku xiran channelkayga maanta waa gabadhiiniyo video cusub la soo noqotay iyo sariir googlitaan go-aas mar horaan soo gaday hadda ma aha mar horaan soo gaday meelaana dhigtay maanta iga qabata markiinaan ku googla sariirta si u ekaato bal aan isla aragno gabadhaas i caawinayso waa gabadha guriga igala shaqayso way iga caawisaa shaqada guriga waxyar kadib waa kan sariirtii aan gogolnay aniga ayada si uu kusoo baxay bal ila eega meeshaasna uunsiya igu jiro dhaaca kaasi deg shakeeya baaluunyaashina kori weli ku xiran yihiin wax furfuray ma laha laakiin insha allah waa la furfurda hal xaba ciyaalka usii siibtaanbo kadib markaan guriga soo dhameeyey shaqada aan kasoo tagay jikada imaaday maanta casuuminaad yaraa rabaa inaan sameeyo videogan waxa dhan aan u duubaba intaas waa casuuminaadaas qolku waa iskaga darsadaybo marka maanta waxaan sameynaa waxaa marti qaadayaa hal qof laakiin inkastoo ila socdeen 3 wiil kaleeto waa iska badiyey alxamdulilah kuma ciiboobin meesha marka chicken hilib bariis iyo maxaa kale loo juuso kala nooc chipska waa ka gaari waayey saa ujeedin hadda waxaan jarjaraya waxaa waaye basal hal xabo basal ku jarjari doona insha allah bariiska basasha way maciisaa haddaad garanaysidna waa kaas kala faa'iidaysiga ceeb ma aha aniga naftirkayga dad badan oo youtuber oo cunto kariyo wallahi ku xiranay waana ka faa'iidaystaa kada qofka wax ka faa'iidaystid waa qeyr waxa ugu daran adigoo wax garanayn oo iska dhigta inaa wax garanaysid camal oo kaleeto laakiin haddaa qofkii wax ka faa'iidaysata waa qeyr haddaa xitaa commentiga igu soo qortid wax oo faa'iido aadi kaa faa'iidayo thank you so much aniga faa'iidayska aada u jecel kulli haddaa ila qabtiin waa qeyr haddaad ila qabinna dee kusoo dhawaada ma fahantiin marka halkaas xabo ayaan jarjarinaa bariiska halkaasa ugu talagalay basalo badanna waan kala jarjari doonaa kan oo hilibka geesa ugu qaleyn doonaa ugu shiili doonane asagana sidoo kale basal kale hal xabaan ku jarjari doonaa marka basasha dee wax ma halaysa inay wax carfiso ee maciise leh ma ogiye marka kheyrtayda soo dhawaada intii hore ila joogtay aad iyo aad u mahadsantihiin like-iga insha allah dhiirigelin ayay ii tahay iisi sheer gareeya videogan 8 kun aan usii soconaa wadada 8 kun aan haynaa fadlan aan gaarno insha allah hadduu xitaa ramadaan ka hore hadda gaaro waa qeyr laakiin haddaa gaari waayana dee ilaahay maba qorinbo haddaa subscribe ii aheena oo aad i daawinaysa intan soo gaartay videogan fadlan waxaa codska weydiisanaya subscribe inaa ii saartid inaan iisii sheer garaysid familigeygan aa kusoo dhawaatid aad iyo aadaan iga mahad celinayaa welcome back maxaa la dhahaa ii sheeg intaas kadib dee wax kale aan sheega ma garanaye kusoo dhawaada cuntadeyda anyways goorma igu dambaysa horta cunto aan kariyo mase shishiilo dadkii hore videoyaashii la socday way ogyihiin cunto mar hore igu dambaysa daartiin cuntooyin badan aan soo sameeya bal let me know cuntadan waa cuntadii ugu horeysa u malaynaya xaajigeyga ah uu sameeyo markuu imaado astaghfirullah horta quraac waa sameeyey ma duubin inaan isoo duubeed quraacdeedii ugu horeysay chapati waxaa kusoo dhawaana magaalada Kenya chapati marka waxaa waaye bariiskan maanta abu ugu horeysa soo umaad inaan bariis kariyo inta kale naciimahan baa iska karinaysa qeyr Allah siiyo ana time ugu heelin jikadeeda waxaa waaye gelitaankeeda way yarta inta aan galo halkii mar aan galana waxaa cunto macaan badan ka soo kala tuura isxayisiye igu qaatay akhay anyways inta kale waxaan rabaa inaan idhaho dadkii igu soo biiray aad iyo aad u mahadsantihiin videoga waa arkayaan tan kor u socdaa viewskiisa special kii oo guriga aan qurxinay aan dhahay kor igu qaada waa igu qaaday wallahi billah daalkii iga soo bixi videogaas iyo interviews ah helo horta aad iyo aad u mahadsantihiin thank you guys u qalmaa hadda inta dhid iga baxo u qalmaa waayo waxaan ku dhahay aad iyo aad u mahadsantihiin lacagtiis way ii soo celiseen marka digsigaas aan dhaqdhaqanaynaa digsigaas waxaa waaye bariiska ku karin doonaa insha allah dee aan isla soconno hadal xaal haanma buuxsho meel dhihi jiray waxyar kadib marka digsiga aadi doonaa insha allah saliidaan ku shuban doonaa aniga saliidaha aan ku shubto waa olive aan isticmaalnaa ma isticmaalna saliid cadeey because cholesterol iyo balaayo iyo xanuuno badan ay leedahay awal waa cuni jiray gabar walaashii aad ka hor xiraada iska dhaaf olive wax badan uu taraa qeyr Allah siiyo xanuuno badanna dee uu ka xijaabi xanuun korta ilaahay haayo laakiin aan ilmahayga waxaa iska siistaa olive mise canjeerada marmar waxaa ugu daraa subag marmar waxaa ugu daraa ii sheeg macsaro marka saliid cadeey dhan waa isdeen ma fahanteen marabi xanuuno iyo balaayo ilaahay naga xijaabo
saa u jeedin chickenkina halkaa geeskaasu ii yaalaa marka hadda bariiskii aan shiili doonaa iskugu aadaadinaynaa wixii dhan markaan isla soconaa khiyaarteyda basashi halkii xabo intaasiba kusoo dhammaataba kadib bariiskii wixii dhan aan isku shushubay bariiskii wixii lagu shubi lahaa waa ku wala shubay everything waan isku walaaqayaa kabsar caleen bariiskii waxyaalihii loogu talagala dhadhanaankii wixii dhan aan iskugu shiile dee qof walbuu yaqaanaa bariis sida loo kariyo basasha markaan shiila iyo shiilmataan ku daray ani basal ma jecli in laga dhex ararko basasha waa shiilaa dadkii yaqaano dadkii yaqaaninni hadda i barta basal adduunka ugu necba waa ku badayaa cuntooyinka laakiin waan ku shiilaa ani basal lahaa dagaalaa naga dhexeysa hadda ark xitaa waan mirmiraa asaga iyo barbarooniga laakiin cuntada waa ku carfsadaa cuntooyinka carfsadaan ka dhigtaa qof walbana dee wuu yaqaanaa marka hadda waxaa maraq digaaga u geeyey maraq digaaga aan ku darayaa bariiska waa dhanaanin raa 3 maraq digaaga u geeyey sababta ay tahay tin waxaan maleynaa 5 koob inaan kariyo miyaa 4 koob iyo bar saasaan kariyey because way badneed dadka inkastoo hal gabar laygu dhahay laba wiil extra nin maxaa ka taqaanaa hal qof ku dhahay imaanayso dad kala la socdo marka dhaqankaasna ugu imaada Kenya dhaqankiisu waa dhaqan nooc min Japan maalna ka soo hadli doona farqiga u dhaxeeya Kenya iyo qurbaha laa ilaaha illa Allah sharaf Mareykan la ka ahaato Mareykan dadka week ahayda lagu sheegay kan waxa lagu sheegay qadada xitaa ugu talagin lagu imaan waxa lagu leeyahay waaba ku imaanaya waaba soo socdaaba dad iga yaabiyay kor waligeey ma arkin laakiin sida kale dad aad u fiican waa dad fiican ka soo baxay reer Afrika yaa caynin waa meeshaan ku soo kornay ku barbaarnay ku weynaanay waxaan ka sheegnaa marka waa dambi marka saa u jeedin waxaan ka miranayaa hilibka markaa miro biyahaas oo ku jiro digsigaas waxaan sameynayaa caano miro u soo qaban waa ka miranayaa sababta ee waa aragteen hilibka markuu butuqo lafuu dhalinayaa laftoo kale taa ka geli karto dhuunta marka dadka dhow aan cunto karnaa marweyne dhaan maxay ahayd qoftan cuntada noo sameysan lafaaba eber naga dhigabe ma fahanti marka waa kana Naciima ay joogto naagta ay shaqeysa Naciima lahaa ayadana iska barta Naciima habal iyo ayada waxa waaye saaxiibo faraanti waa fahantiin marka wakaas dawaan walaaqaya bariiska hal mar leen walaaqi waana ka dhaqaaqaya sida kale dhan asaa isla karkari doona bas fi sabiilillah waliga bariis hadaa walaaqa ka badisid hal faa'iido uu leeyahay ma jirto mana furfurmaayo maxaa xafsa maxay tiridaa rubi maxay dhahday meel ku qorta ma fahantiin marka qiyaarteeda videogan intan hadda soo gaarteen fadlan waxaa codsina weydiisanayaa in like saara views ko soo yaala views ko kor igu soo kiciya please waa codsi gabadhiina weydiista waaye marka thank you basal kalena wakaas basasha naftirkeeda waa jarjaranayaa waxaan u jarjarayaa hilibka aan u jarjaraa hal xabaa asagana jarjar waan sheegaa in basasha war leen ka keenaa ma fahantiin halka maraan jikada galo basasha war dheer ka keenaa markay u qaata qufacana bibideedii yara ay qufacayso yar xanuunsanta ayaantan ma aqaan wax ka qaldan habeenkii la qufacada ibal igu soo duceeya inta qof oo igu xiran waxa laga yaabaa hal qof ducadiisa la aqbalo marka insha Allah igu soo duceeyana ciyaal qufaciyaal xanuunsan wallahi ma jeclin inkastoo xanuunka dambi dhaaf iska yahay qofka bilaadankan loogu talagalay inuu iska xanuunsado ilaahay ku tigan horta xanuun naga qabto inta xanuunsanna ilaahay caafiyo dhamaan u soo duceynaya inta muraad lahna Allah wa aqbal muraadkooda oo aniga kamid ahay marka insha Allah waa ducada igu soo kaalmeeya aniga waan soo duceeyay ii jeedine marka basasha saas aan jarahay la yaabina markaan hilibka qaleeyo aan rabaa korna uga daro insha Allah hadaan qaldaneen barbarooni ku daro maleyna laakiin ma xasuusti inaan ku dareen kal qof weliga akriyo ku dhaay ma xasuusti weliga ma aragteen aniga ka kooke igu qaad waa saasoo meer ma xasuusti aan lagu dhigay marka hadda waxaan imaanay soo jeedin chickenkan aan wixii maraqiisi dhanaan qoystay everything kadib ani biyo kuma qoynin olive iyo waxa ku qoylin dhanaan inta kale waa maraqiisi oo bisbaas u yar yeelay
kuwana bisbaasaan ka dhigi kuwana bisbaas kama dhigaa waan kala bixinayaa because dadka martida markay ku imaadaan dadna kuleel iska jecelin dadna kuleel iska ma jecel hadda anigoo kale haddaan meel aado marti waxaan jeclahay wax in la ii yar ku kululeeyo marka ani saasaan iska haddaa ii soo martiyeysid waxaa waay kuleela iskeele kuwana waxaa iskeelisaa kuleel lahayn marka dee wakaas chickenkeygina waa soo yar qurxiyey oo ii soo yar karay kan waxaa waay xoogaho waxaan sameynayaa dabkan xoogaho ku yar shishiili kadibna waa dhanta sheekada waxaa waay nacnaciina ma fahanteen marka cabaar kadib horta waan xireynaa hadda baashaan waan xiri markaan xiri firijeerka waxaan gelinayaa 30 minutes 30 daqiiqo bas 30 daqiiqo kadib waan soo bixin doonaa insha Allah laakiin hadda fadhiga aadaya candle-kan soo shidi doonaa waa kana candle-kii oo shidan oo maasha Allah fadhigayaan kala tutuusiyey kadibna waan jikadan ku soo noqoni waa kuwan hilibkii meel ku jiro bariiskii gees meel ku jiro marka daboolahoodan saari dhinacaas kale to ibirka chicken ayaan saari doonaa insha Allah chickenkan waa kasoo ujeedin waan kasoo bixiyey meesha kore oo fridge-ka kadib waxaan sameynaa waa shiil doonaa abaar kadib waa kana anigii hadee oo soo qaaday bariiskii dhan xaggan u soo waday waxaan rabnaa jikada geeyaa umar hadana waan ku celiyey meeshaan ku soo celiyey wallahi waa la yaabin waxaan u maleynaya inaan chicken wadanin chickenkii hilibka isku kaada naagta way igu qosashay kadib waa kana anigii wixii dhan sharxay bariiskii iyo chickenkii iyo maxaa la hilibkii laba juus oo kala noocna halkaas ay ugu diyaarsan tahay oo liin macaan iyo waxa waaye avocado iyo cambo